dugsiga sare ee Oodweyne Secondary School oo waqtigan dadaal loogu jiro sidii looga dhigi lahaa hoyga ardayda ama boodhan ayaa maanta gudida gacanta ku haysa shixmad raashin iyo agabka cuntada ah kala wareegeen hay'adda wadaniga ee Aado iyo waliba tuulada Beerato wareejinta deeqdaasi oo ay goobjoog ka ahaayeen maamulka gobolka ka degmada iyo waliba gudoonka waxbarashada ayaa waxa ugu horeyntii halkaasi ka hadlay gudoomiyaha waxbarashada gobolka Daadmareer Axmed Cismaan Maxamed waxaanu kala wareegaynaa hay'addan Aado oo wax badan nagala qabatay boardingka raashinkii ay noogu ballan qaaday oo ah 30 gadbadood weelkii oo ay diasporada soo inoo soo marisay hay'adda Aado injineer Jaamac Aadan Diriyo ka socday hay'adda wadaniga ee Aado iyo waliba xildhibaan Yuusuf Maxamed Dubad oo isaguna wakiil ka ahaa deeqda tuulada Beerato ayaa labadooduba halkaasi ka cadeeyeen deeqahan kala duwan ee kaga qayb qaadanayaan furitaanka dugsigan hoyga waxaan ka socdaa hay'adda ADO oo runtii gudoonsiinaysa alaabta halkan hortiina taala maanta degmada Oodweyne gaar ahaan iskuulka boodhanka raashinkii oo ka kooban 30 kabdadood aan raahdo 26 raashin ah iyo 5 jirikaan oo saliida oo u dhigma 100 litir sidoo kale waxaan halkan iyana ku wareejinaynaa weelkii cuntada oo runtii dhameystiran oo uu soo iibiyay ninka la yiraahdo Axmed Cali Madar oo qurba jooga wararkii Beerato waxay ayaguna halkan keeneen 10 gadbood bay deeqdii ugu horeysay soo qadimeen oo idan halkan runtii anigu wakiil uga ahay ay soo guddoonsiiyeen marka waxaan leenahay ciidii ka baxday iyo ciidii marka ka agdhowba hawshu waa bilow mar haday bilow tahayna waxay u baahan tahay in hareeraha la wada qabto marka waxaan leenahay qurba joog iyo qolqol joogba hawshii laga wada qayb qaato ugu dambeyntii gudoomiye ku-xigeenka gobolka Daadmareer Maxamuud Cali Axmed Juba iyo ku-xigeenka duqa degmada Oodweyne Maxamed Cumar Cilmi ayaa hay'adda Aado ku amaanay doorka muhiimka ah ee ka qaadatay furitaanka dugsigan iyagoo sidoo kale mas'uuliyiintan gobolka iyo degmadu baaq u diray qurba joogta iyo waliba cid kasta oo hore uga baxday dugsigan inay ka soo qayb qaataan bay aadeen soo celinta tayadii dugsigan ilahaan jiray waqtiyadii hore Muuse Salebaan Maxamed telefishinka qaranka Soomaaliland magaalada Oodweyne.